idati dhaxaltooyo hore ha noqdo oo family iyo caa'iladu ay lahayd kanaynu inagu ka warramaynaa kama aha waxaynu ka warramaynaa waa wixii ka yimi asbaab khaarijiya asbaabta khaarijiga ay ka timi markaa waxa weeyaan qofka mashkilada ku dhacday qofka oo warwar galay qofka oo musiibaynta ku timi musiibadii xijin kari waayay xanuun bay dhashaa marka dambe dunida xanuunkani wuxuu maanta ka mid yahay xanuunada ugu tirada badan leh xanuunadan isla hadalka iyo warwarka ahi waxay ka mid yihiin xanuunada dunida ugu tirada badan leh walidaalika waxa la tilmaamaa Yurub oo kale afartii qof baa qaba bay yiraahdaan afartii qof ee kasta Yurubiyana mid baa liqa daawooyinkaasi loo liqo xanuunada nafsiga dadku haddana ay xanuunka wada qabin ama baahidan itmiinaankii baa la waayay weeyaan dadku xasiloonidii iyo deganaanshihii qalbiga ahaa lumay markaasaa warwar iyo walbahaar adduunyo israaciskan baana intiisa badan keenay maxaa cilaaja baynu leenahay marka maxaa dawaa ugu horreyn waxaynu leenahay kitaabka qur-aan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba uu ku soo arooray wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi uu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laazima aanu ku dhacaynin insha allahu tacaala kaa khaarijiga aynu ka warramayno waxaa kaloo ku soo arooray wax la iskaga daweeyo oo qur-aan iyo xadiidba leh dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn caalamulislaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada warwarka iyo walbahaarka ku saabsan iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay sababtu waa maxay sababta koowaad waxaanu leenahay waa masalatu alqadaa'i waalqadar qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa' waalqadar wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisiyo wixii uu qoray wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd qofka mu'minka ahi carruur ka dhimatay xaas ka dhintay shaqo uu waayey makaano uu waayey warwarkiiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo in western society wadannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dad aba isdila waayo boorsadii baa khasaartay uu lacagta gashaday dabeetana waxaa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah sababtu waa maxay boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta markabu soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midubaa bay noqotaa inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide iyo in waali dhakhtarka lala dhigo ama qofka muslimka ah inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayey ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray dabeetana wax weyn kuma noqoto alqadaa waalqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qofka mu'minka ah wuxuu rumaysan yahay wax kastoo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan la lahay wax qiimo leh markaad weydaabaa dee la naxaa laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث إمام الترمذي ورني الشيخ الألباني نحس صحيحة كنت المامية أدون لما انتبه إلهي أكتي هدو قرب كان يعكل لقيا كان يعلى قيبية كان يعانا وفايدة لعين أي هدنا لقيب قيبية وحلت المامي قرب كيت أدون لما انتبه ليلة هدو كان يعقرب كيت إلهي أكتي كتشوبه قيمة انت لك هدو كلي هاي قال كوبيا كما سيين بالبري قال لغما ورابيه idan qofka muuminkii wuxuu rumaysay adduunkuba qiimo loo warwaro wax garab kanaaca ka yardee looma waasho saadaradeed
qofka mu'minkahi wuxuu rumaysan yahay aakhiro waxa ka mida waxyaabaha boofiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka ku ducaysta اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلهي سبحانه وتعالى وكفر فرح وأنا الدعاء دي النبي عليه الصلاة والسلام ولبتن وحيد هذا والدعاء وقائية قفك كل دعاء يستقم وبرعه وحكم إذا بيع علماء ضيد هذا إن الحصوصته أدونك أتكون شيء لبكستوك هستمد كارد بدنين وشلو qoladani cilaajka nafsiga samaysa culimada psychology-guna waxay yiraahdaan waa cognitive bay yiraahdaan therapy waa qofka in la qanciyo ama se inaad rumaysato aswa ihtimaalaat qoladan dadka dawaysa psychiatry iyo psychology-gu dadkooda buka intay isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa dabeetana mid walba waxa la yidhaha dhibtii iyo mushkiladii ku qabsatay ka waran markay isaga warramaan qaar bay arkaan dabeetana qof baa wuxuu isidhahaa warilin adiga waxba kuguma dhicin kuwanbaa balaaya qabsatay midba markuu mid kale balaayo kasii weyn ka warramo waa ariiq ay u cilaajiyaan dadka mardaaga ah ee ikti'aabku depressionku hayee loo keeno waxyaabaha wax lagu daweeyo waxaa ka mid ah xusnu dhan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba wuu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baa tagtay dhakhtarkii baad hore u weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo mar rabo wakhtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waaye uu daydayo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacay aanu meeshaba soo gaadhin waxa laga yaabo xusnu dhanni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba siis qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidaalika baa ilaahay wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni isma waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarrufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baan waxaan idiin tilmaamayay axadu saalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto dee marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalayo waxaasay kaa sheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii fidhiniya waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kuga abaalguday hadiyadda tan qaada buuri xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayay waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa وحسناتكaaga dadka loo qaybinaya hadii xasana laga waayana sayi'aadkood idan haddaad si fiican u fakarayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxa ka mid ah in leenahay qofku inuu garto amal inna ma'a al-usri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in barito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoo iska kooban daraaddeed qof kasta uu xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga waa dhakhaatiir wax daweeya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii haddii masaa'ilkan khaarijiga iyo iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakaraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakarto waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaa baan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa
xanuunada nafsiga intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhahaa sonkorow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsiga wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska dawayn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mida waxaad u baahantihin haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydo iyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad hayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibinkan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahay ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwati fi lcaqiida ugu horreyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee waa yar dhakhtarta